shirkaas oo labada dhinac AMISOM iyo maaragtay taliyaha ciidamada maaragtay Uganda iyo maaragtay African Union iyo maaragtay safiirka Uganda waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meesha ka dhacday loo xalin lahaa saddex qaybood ayaan u kala qaadnay dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda la soo xiray qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda taasna ay dawladda Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamada AMISOM ka wada shaqeyn doonaan qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray walaalaha ahaa maaragtay familkii dhibka gaaray gaarka ahaa in ayagana maaragtay arintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay iyadoo ay maaragtay ay nagu waafaqeen ay naqirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007 dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin taana waxaan iskala diyaarinay istiraatiijiyad cusub oo lagu kontroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dhib noocaas oo kale dambe uusan u dhicin loona sheegi doono dhammaan sektarada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protect gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga intaasaan hadda ka wada hadalnay waxaan u ballanay guddi farsamo oo arinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono golaheennii wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra'iisul wasaarahana waxaan ka shaqeyn doonaa in familiyadii aragno in wax allaala wixii dhib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno hubinana inay xaqoodii helaan cadaaladiina ay maaragtay la sirfa gareeyo